kulan wacan daawada subax wanaagsan meel walba oo aad joogto waxaad ku soo dhawaataa janaalka tusmada filmada hadahan oo kale waxaa idiin soo gudbinaa saakaytoola maxaa laga qoraa arrimaha Bollywoodka kuwaas oo aan sidii karna xiiso weelihiin oo daawadayaashina ku taxan barta tusmada filmada waad la wadaagi kartiin la xiriira filmada soo socda waxyaabaha ka soo kordhay xanta jilayaasha iyo waxyaabahan kala sidii karna xiiso weelihiin oo daawadayaashina ku taxan halkan waad la wadaagi kartiin hadad ka heshaan warbixinadana la wadaaga asxaabtiina waxaan ku bilaabi doonaa warbixintana saakaytoola xidiga Salmaan ayaa feeryahan kareer Hindiya ee lagu magacaabo Vijender Singh wuxuu ku soo daray filimkiisa Kisi Ka Bhai Kisi Ka Jaan kadib markii la curiyay Salmaan filimkiisa Kisi Ka Bhai Kisi Ka Jaan ayaa wuxuu naqdmi soo jiita dareemada taageerayaashiisa haddii naqto in mar uu kula dabaaldego dhalashada hogaamiyaha ee qaybta atirshada filimka dhalashadeeda sidoo kale mararka qaar inuu taageerayaashiisa la wadaago goobta lagu duubayo filimka sidoo kale markaan film soo saarayaasha ayaa waxay rabaan in ay daawadayaashooda ay ka dhigaan kuwa filimka halkuu maraya la socodsiiyaan abdeedka ugu dambeeya ay siiyaan markaan ayaa filimka waxaa kasoo kordhay abdeedka ugu dambeeya kaas oo la xiriira in cast cusub amaba qof ka mid ah filimkaasi Kisi Ka Bhai Kisi Ka Jaan lagu soo darayba ninka professionalka ee feeryahanka ee reer Hindiya markii dambe isku bedelay siyaasi ee Vijender Singh ayaa markaan waxa uu film jilista ku soo gali doona filimka Salmaan ee Kisi Ka Bhai Kisi Ka Jaan kaas oo si rasmi ah oo Salmaan Instagram-kiisa ugu soo qoray asagoo markaas xidigaasi u dabaaldegay dhalashadiisa ninka lagu magacaabo Vijender Singh waxaanu sheegay in fursadan ay tahay mid oo xidigan lagu barayo in uu ka mid ahaan doono dadka filimkaasi Kisi Ka Bhai Kisi Ka Jaan Salmaan kala soo muuqan doonaba waxaana sidoo kale uu social media uu soo dhigay qaybtiisa Instagram-ka wuxuuna soo raaciyay dhalasho wanaagsan feeryahankeena walaalkeena waxaan sidoo kale uu intaas kale uu si raaciyay waxa ku soo dhawaata ayuu sheegay qaybta filimka waxa sidoo kale sawirkaas kula midoobeen qaar ka mid ah xidigada filimkaas ka soo muuqan doona Ajay Gil Siddharth Nigam Raghav Juyal sidoo kale halka feeryahankana uu asna Instagram-kiisa soo dhigay sawir kale kaas ugu mahadcelinayo xidiga Salmaan Khanba markaan warbixinada ugu dambeeyay ee filimkaasi aan ka hadalnana sida qorta shabakada Bollywood hangama koorta filimka Tiger Tiri Salmaan Khan marka wuxuu rabaa in filimkiisa Kisi Ka Bhai Kisi Ka Jaan in loo jadwaleeyo kalkoor in la daawado December sanadan ku guda jiro 2022 filimka ayaa markaan waxaa dib loo dhigay sidoo kalena filimkan waxaa lagu aadin doonaa April 22 ee Eid soo socota sanada 2023 filimkan ayaa wuxuu yahay film madadaalo qoyska ku saabsan kaas oo markaan lagu wado in dabaaldeg maalinta Eid ee shacabka Hindiya ee filimkaas soo daawasho tagaan alaba Salmaan Khan ayaana markaas ama maalintaas uu xoreysan taaba ugu dambeyn waxaan eegi doonaa xidiga Akshay Kumar ayaa markaan wuxuu diidan yahay in filimkiisa Heri Fairy Tale lacagta ku sameeyay 100 crore inuu lacagtaas oo ka dhimaba kadib xidiga Akshay Kumar sanadan 2022 ayaa waxa uu sanad u xun taasoo filimadiisa ugu dambeeyay noqdeen kuwa box office ka mucadar ka sameeyeen waxa ugu dambeeyay filimka Diwaaligan loo daawaday Ramsetu kaas oo markaan lacag aan baxsaneyn ka sameynaya gudaha box office ka markaan ay sidoo kale Kamal Arqan midka alaba Bollywoodka jilayaashooda waxyaabaha ka sheego ayaa markaan waxa uu ku maadeystay xidiga Akshay Kumar waxaan sheegay in xidigan markaan uu diidan yahay inuu qiimo dhimis ku sameeyo lacagta uu ku sameeyay filimkaasi asoo uu wacanta ay sheegeen filimadiisa dambe ee naqanin kuwa cadar ka dhigay gudaha box office ka markaan fiirino xidigan ayaa laaba wuxuu naqdiyaa xidigada Bollywood ugu caansan kuwaas oo kamid yihiin Salmaan Khan Shah Rukh Khan iyo Aamir Khan markaan Akshay Kumar ayuu ku soo daray liiska asagoo markaan ku beegsaday qaybtiisa Twitter-ka wuxuuna sheegan xidigan markaan uu rabin in ama xidigan uu diidaba in uu qiimo dhimis ku sameeyo lacagta uu ku sameynayo filimkaasa taxanaha ee Heri Fairy kaas oo kala soo muuqan doona xidig kale ee lagu magacaabo Sunil Shetty wuxuu sheegay xidigan markaan uu ku rabo in filimkan uu ku sameeyo lacag gaaraysa 125 crore taas oo san suurtagal ah marka loo fiiriyo xidigan oo maalmihii ugu dambeeyay filimadiisa qasaare ee la kulmeen wararkan ay si rasmi ah loo ogaanay saate arintaas ayaa waxa qoray xidiga alaba xidigadaasi naqdiye Kamal Arqan wuxuu sheegay in xidiga markaan uu diidan yahay lacagiisa waxa uu ka dhimabo si kastaba Heri Fairy Tale ayaa markaan wuxuu yahay mid la rabo in xidiga Akshay Kumar Paresh Rawal iyo Sunil Shetty in filimkaasi lagu soo daraba Feroz Nidwala kaas oo ah film sameeyaha ama film qarash gareeyaha ayaa markaan wuxuu rabaa in filimkaasi lagu soo celiyo saddexda nacas ee Raju Shyam iyo Babru doorarkooda kuwaas oo kala Akshay Kumar Paresh Rawal iyo Sunil Shetty
filimkan ayaa waxaa lagu wadaa in sanada soo socota la daawado ama shaqadeeda ay bilaabato iyadoo sidoo kale si rasmi ah loogu dhawaaqi doono bisha soo socotaba haddii filimkaasi Akshay Kumar lagu soo dari doono iyo haddii kaleba. Inta aynu kusoo xirnaa saakito la daawada muuqaaladeen aan ku eegayna wararkii ugu dambeeyay saaka soo kordhay kuwaas oo aan islaan xiiso weyn lahayn daawadayaashana ku taxan barta tusmada filimada waa la wadaagi kartiin haddaad warbixinada ka heshaan la wadaaga asxaabtiin ood ku maasintiin alaaba sidaad muuqaaladeen aad u daawataan.